xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa wax laga xumaado uu ku tilmaamay in golaha wakiilada Somaliland ay si duuduuba ku ansixiyaan oo daraska miisaaniyadda sanadka 2022 waxaana uu gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ugu baaqay inuu sharciga ku soo noqdo golaha awoodihiisa ay ka mid tahay inuu xeerka miisaaniyadda ansixiyo qodobka 15aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa faqradiisa kala duwan ayaa siinaya awoodaha in golahu uu ka doodi karo oo ansixin karo miisaaniyadda xeerka miisaaniyadda waxaan oran karaa waa xeerka qura la tacaluqa financial issue ama dhaqaale golahu gaar u yahay ee aan marin golaha guurtida dabashada waa la ansixiyay hal ansixiyay waxa lagu ansixiyay 57 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baansixiyay laakiin say ku qurux badnayd anigu waxaan dareemayaa say ku qurux badnayd in ahayd in dood la geliyo in dood socoto laba week ay dood socoto waayo in badan baanu darsaynay miisaaniyadda oo aanu akhriyeynay oo ku indha go'nay shalayto sida xudhaceen aanu habi kumaan ahayn runtii markaa shalayta runtii waan ixtiraamayaa go'aanka goloweynaha oo 57 xildhibaan oo ka mid ah golaha baa gacanta u taagay gacanta xildhibaan kastaan xaq buu leeyahay gacantiisa iyo sidoo taagayo qaabku go'aan qaadanayo xildhibaanadu xildhibaano ma aha iyagu waa xildhibaano kala madax banaan anu waxaan oran karaa waxba aan bedeli karnaa ma jirto waxaan bedeli karnaa ma jirto waxaan oran karaa anu ma garan karo sababta dadka kan Jamhuuriyadda Somaliland ama dalka kan dadka kani horta dad wanaagsan dadkeenu waa dad fiican oo dad qalbi wanaagsan laakiin nasiib darro haysata nasiib darrada haysta weeyaan cid kasto ay hoggaanka u dirtaan ama cid kasta ay aqalka u dirtaan way xumaataa sababta walaalaanka cilmi baarayaasha ama researcherska gudaha maxalliga ahi waa inay baaraan habka way aniga oo markii hore aan tartamayay anaga 22 xildhibaan oo markaanu tartamaynay wanaagsanayn oo ahayn xildhibaano wanaagsan oo dadku hanway yihiin markaanu aqalkii galay maxaana xumeeyay madaxweynaha ama madaxweynayaasha marka la doorto ay galaan gudaha maraarta galaan soo fadhiistaan gudaha halka looga arrimiyo dadku filashadoodu way isbedeshaa marka ma dadka xun oo ilaahay man dadkan u jid bixinayn ma dadka la doortay baa xun ma yeyno habaaranahay oo habaar guud baa ina haysta anigu sababta aniga laftaydu way isweydiinayaa qofka wax way ka khaldami karaan mararka qaarkood qofku wax uu ildoofi karaa laakiin wali alaanka wax isleeyahay fursad buu haystaa shirgudoonku ama gudoomiyahayagu oo ku shaqeyn karo qaabka dadku doonayay xalay wad arkaysay anigu dadkaanu ka nimid oo dadkaana soo doortay xalay wad arkaysay social media dadku raalli waxay ku yihiin in wax walba la faaqido laga doodo oo la lafogoro oo marka la iswadaariyo marka wali alaanka fursad buu haystaa gudoomiyuhu oo waxyaabaha ka khaldama ama waxyaabaha uu ildoofo oo ku sixi karo wali fursad buu haystaa in uu wax walba saxo waayo hadda waxaan joognaa 6 bilood waxaan dhaamin baanu joognaa marka wali waqti buu haystaa gudoomiyuhu oo ku sixi karo wax kasto khaldan oo golaha ka khaldan waxaanu jecel lahay wax la lafoguray oo hariyan wax cunaha mari kara bulshadu liqi karto ka daadegi kara ku farxi karo inaan mar walba bulshadii aan u soo bandhigno oo keeno goluhuna wuxuu ku shaqeeyaa dhaqan la yiraahdo culture la yiraahdo go'aan gole oo habdhaqan golu leeyahay habdhaqan ma laha habdhaqan xildhibaanaysan oo kaliya habdhaqan gudiyaysan male habdhaqan shirkudoonaysan male macnaheedu waxa weeye shirkudoonku wuxuu jeer gareeyaa go'aanka guud ee golaha dood lama ogolaan xildhibaanadu inay doodaan xildhibaan ka mid ah xildhibaanadu xildhibaan Maxamed Abiib dabcan wuxuu u diyaarsaday doodiisa wuu diyaariyay wiig badan buu diyaarinayay in badan buu la foguray dabcan waxay in loo sii daayo loo ogolaado inuu doodiisa dhamaysto bay ahayd waxa jira jidgooyooyin wax la yiraahdo jidgooyo in ay isbaaro dhigtaan gudi ama cid isbaaro dhigato goluhu isbaaro ma aqbali karo waa in golaha loo ogolaado 2 kuba in si siman oo xor ah ay u doodaan nin walba intuu doodo waayo time ina xadidayo oo time ina xiraya ma jiro in ay ogolaadaan in la ogolaado in golihii doodo oo aad u doodo la faguro wax walba hor yimaada kadibna markaa go'aanka ugu haboon uu ka qaato oo dabciga goluhu ku shaqeeya go'aan gole
go'aan qof maaha go'aan gudoomiye maaha go'aan shirkado maaha go'aan business committee maaha go'aan gudi maaha dhaqanka goluhu waa go'aan gole waxyaabaan codsanay waxa kamid ahaa in la soo dhameystiro gaar ahaan degmada aniga layga soo doortay Maydh ee dadka dhan ka soo wada jeedaan dabcan cid walba oo laga soo doortay madaxweynaha oo deegaankiisii oo dhulkiisa oo ku tafiirna iyo dadkeeno dhan marka Maydh kumaan arag miisaaniyada dowladaha hoose kuma jirto dabcan laakiin waxyaabo ka maqan baa jiro oo dowladaha hoose inay hortimaday heed taasna laakiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda baan ka codsanay inaanu iyadoo gaar ah helo hadii la hayro Cabdirasaaq Qaasin telefishinka Saab magaalada Berbera